السلام عليكم بالكورن داود هذه الحسوستيد حالات كستو noloshaada ku soo martay haday noqoto farxad ama banaxdin laga soo bilaabo toddobaadka ama wiigii kugu horeeyay aad ku soo biirtay adduunka oo aad si cad oo aan shaki kaaga jirin u kaydisay maskaxdaada wixii dhacay ama wixii dhacay ee kugu hareeraysan xilligaas ama waqtigaas oo aan ilaa maanta maankaaga ka bixin waa arrin la yaab leh qalkeenan maanta waxaan kugula wadaagi doonaa xaalad dhif iyo naadir ah oo magaceedu yahay ama lagu magacaabo hyperthymesia ama xasuusaha xad dhaafka xaaladan ama xanuunkan oo dadka qabaadhan yihiin 61 qof dadka ku nool adduunka oo dhan magacaygu Cabdimajid waxaan ku soo gudbiyaa kanaalka dooyin xaqiiqo iyo waadic faa'iido leh fadlan dad nagu cusubtaa kanaalka ku soo biro subscribe taabo lana wadaag asxaabtaada adduunka cajibay muuqaalkani mahadsan aynu guda galno muuqaalkana maanta. Imagine being able to remember every minute detail of your life. You can recall what the weather was like, what you were reading, or what you wore to the shops at any minute, any hour, or any day stretching back decades. It sounds like some kind of parlour trick, but it's actually a real and very rare medical phenomenon. So far, scientists have identified 10 cases worldwide. And believe me, what these people can do will quite simply make your head spin. xanuunkan lagu magacaabo hyperthymesia ama xasuusaha xad dhaafka ahi waa mid ka mid ah xanuunada dhif iyo naadirka waxa laga soo minguuriyay magacan uu wato xanuunkan ee hyperthymesia kelmad Greek ah oo dhagnay sida tan hyperthysius taas oo macnaheedu noqonayo sidaynu hore u soo xusnayba xasuusaha xad dhaafka ah waxaana magacan u bixiyay xanuunkan kooxo dhakhaatiir ah oo ka tirsanaa jaamacadda California ee dalkaas Mareykanka una takhasusay cilmiga neerfaha dhakhaatiirtan ayaa sababta ay ugu bixiyeen magacan xanuunkan waxay ahayd xilli ay ku guda jireen ama daraasinayeen oo ay baarayeen xaalad dhif iyo naadir ah oo ay la kulantay gabadh qoraa ah oo u dhalatay dalkaas Mareykanka oo lagu magacaabi jiray Gail Bryce oo da'deedu ahayd xilligaas 34 jir ama 34 jir intaas kadib waxay maalmaha ka mid ahayd u tagtay nin lagu magacaabi jiray Dr. James oo waqtigaas ahaa maamulaha jaamacadda California dhanka neerfaha iyo barashada xasuusaha markii ay gabadhani la wadaagtay arrinkan ama inaysan ilaawin xasuus kasta ama xaalad kasta oo nolosheeda soo martay yaab iyo ama kaaga ay ku noqotay Dr. James markii uu maqlay dhibkan haystay gabadhan qoraaga sababtoo ah waxaanay ama dhibkan ay gabadhani ula timi in uu bal xal ka siiyo waxa uu ku arki jiray filimaanta khayaaliga ama buugaagta fictionka ah ee mala awaalka ah waxaana uu goostay oo ku dhaqaaqay bal inuu tijaabiyo heerka xasuuseed ee gabadhan inta uu leeyahay waxaana uu dhiibay buug ka sheekeynaya dhacdooyinka dhacay dagaalkii labaad ee adduunka waxaana uu ka dalbaday inuu akhriyo buuggan gabi ahaantiiba markay dhameystaan akhriskiisa uu bal su'aalo ku guda yaala buuggan weydiin doono markay dhameysay gabadhii akhrintii buuggii waxa uu bilaabay inuu weydiiyo su'aalo cashwaay ah yacni aan socnayn oo isku xigxigin jawaabahooduna ay gudaha buuggan ku yaalaan arrinka dhacay ayaa ahaa in ay gabadhan qoraaga ahi ay uga jawaabtay su'aal kasta oo uu weydiiyay Dr. James jawaabid oo kaliya ma aha waliba si aad iyo aad u dhaqsiyo badan waxaana khabiiradii gacanta ku hayay ama daraasanaya xaaladda gabadhan qoraaga ay ku tilmaameen inay tahay mid aad iyo aad u la yaab badan waxa kale oo ay sii raaciyeen khubaradii baadhayay xaaladdan gabadhani in aysan hore u arag qof la mid ah gabadhan waxa gabadhan qoraaga ay sheegtay mar lagu soo martay qaaday TV in maskaxdeedu la muuqatay ama ay tahay sida laba shaashadood oo TV ah oo midba waqti ama saman kale kaydinayo yacni in shaashada ama maskaxdeeda dhanka midig ay kaydinayso waxa maanta taagan ee xaadirka ah halka dhanka kale ee bidixna ay kaydinayso wixii la soo dhaafay ee maadiga ahaa waliba si waadax ah oo ay u kaydinayso oo aan wax tashuush ah xanuunkan hyperthymesia waxa la sheegay oo la ogaaday inuu ku dhaco dad aad u tiro yar adduunka dhammaantii sidaan hore u soo xusnayba waxa qaba xanuunkan hyperthymesia 60 qof oo kaliya adduunka dhan 7 bilyan iyo badhka waxaanay dadkaas inaga duwan yihiin aniga iyo adigaba waxay awood u yeesheen kaydinta ama garashada xasuus aynan awoodi karin in xasuusano waxaana xusid mudan in maskaxda bini'aadanka badankeedu ay xaalado gooni ah ku samayso kaydin halka inta kalena ay qashin qub ku samayso dii ay inta kaga gudubna arrinka gabadhan qoraaga sideen hore u soo sheegnay ama soo xusnayba waxa jira 61 qof oo qaba xanuunkan hyperthymesia bal hadda imika inuu guda galo wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo oo nin kale dhallaanka ama uu aadka u yaraa ama uu daada yaraa
ayaa waxa waalidiintii ay ku arkeen wax ka gedisan caruurta kale ee la filka waxaas gaarka ahna oo ahaa inuu wiilkoodu leeyahay awood aad u sarreysa oo dhanka xasuusta ah waxaanay ku tilmaameen heerka ay gaadhsiisan tahay xasuusta wiilka yari in uu yahay weli mid xasuusan wixii amaba xaalad kasta oo soo martay maalintiisa oo idil sabadhaaf maalintiisa oo idil xitaa ereyadii uu ku hadlayay ee ka soo baxayay afka macallimiintii maanta u soo gashay iskuulka ayaa si wacan ama si waadaxa wax xasuusanaya ama wax xasuusan yahay weli sanadkii 2010 waa sanadka ay wax badan iska bedeli doonaan ninka lagu magacaabo Tweed waana waxa maalmaha ka mid ahay lagu marti qaaday ninkan barnaamijka caan ah dalkaas Mareykanka oo lagu magacaabo jiray 60 minutes xilligaas oo da'diisu ay 27 jir waxaana mawduucan barnaamijka maalintaas ku saabsanaa dadka isku arkay xaaladda nifiya naadirka ee hyperthymesia ama dadka la xasuusta xad-dhaafka markii ugu horeysay ee uu ninka la isku arkana xaaladdan ma uusan yaqiinsan ilaa uu barnaamijka gudihiisa ku wacay ama ku garaacay telefoonka Dr. James balse uu uga warbixiyo ama uu sheegay inuu ka mid yahay dadkaas qaba xanuunkan markii uu la wadaagayna Tweed Dr. James arrinkiisa waxa uu Dr. James uu sheegay ama ka mid dhigay inuu ka mid yahay 60 qof ee qaba xanuunkan hyperthymesia ugu dambeyntii bal nagula wadaaga daawada adigaagan daawanaya ka mid tahay dadkaas ama aad garanaysid qof dadkaas ka mid ah xanuunkan hyperthymesia qaba sanduuq hoose ama ee commentiga muuqaalkana like star hadii uu ka cajibiyo lana wadaaga asxaabtaada mahadsanidin dhamaantiiba waxaad ku dhaafayeen intaan ku kulmayna muuqaalka xiga salaamaad